qaar ka mid ah dadka danyarta ku nool xaafada injida magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer iyo cabasho xoogan ka muujiyay wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer oo ay sheegeen inay keenayso dhakhtarka hooyada iyo dhallaanka ee dowladda Imaaraadku ay ka hirgelisay xaafada injida doortii xanuunka Covid-19 oo muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer farbaas ku hayay meel kale dee la geeyo dhulka kale koonayaasha magaalada la geeyo dadka dee maatada iyo caruurta halka ku soo xoomayaan war farsi dhigan maysid Imaaraad baa keenay dadka danyarta baa loo keenay baroortiga orgiga ka weyn waxa aad ku socotaa waxa weeye sariiraad ku socotaa sariiro ayaad ku socotaa kuma socotid faraska hadii la keenayo corona faraska war garoonka diyaarada maxaa loo geyn way iskuulka orfarada maxaa loo geyn way manhal maxaa loo geyn way xanaanooyinka kale maxaa loo geyn iskuulaadka kale way wada banaatay magaalada airportka diyaaradu ka duusho intuu la eeg maxaa halka laga soo doonay wadaasaan lagu socday corona iyo dal la keenaya ma jiree alaabadan ku socdaan nimankani maamulka dhakhtarka jooga naga qabta oo hanoo keenina xaqada dadka miyaa la sareynaya ma waxa arka xanuun meel laga soo qaado bulsho dhaliyo bal dadkaas inta la leeyihiin rafacmeen shalfadna laga qaadi maayo maqasna hal maqas baa laga qaaday hal maqas ayaa laga qaaday waxa ugu dhumay oxygen baa halkan boqol oxygen waxaas oxygen wax ka soconaya ma aha ninka gudoomiyana warkaaga waanu haynaa shaqada aad qabatana waanu ognahay annaga dhakhtarka yaga geedkiisii iyo wixiisii ha loo sameeyo geedkiisii iyo wixiisii aad loogu shaqeeyo hooyadii dhalaanka loo sameeyay ha loo sameeyo hooyadii dhalaanka hadii ay u furan yahay welcome waa soo dhaweynina isu duwaha gobolka ninka la yiraahdo shaqadaadi wad qabsan kari weydi isu duwaha gobolka shaqadaadi wad qabsan kari weydi inanka ayaa dhakhtarka haysta ayaa kugu maamula shaqada oo kugu maamula waa ninka isu duwaha hadaa adigu shaadmeed la noqotay oo inanka yar ka dhex baxayo oo doonaya sariiriga dhakhtarka inuu qaatay oo hawshaadi aad gaftay de waa nasiibka xiniyaaga halka ku dhigay waxaan ka cabananaa dadka kalooraha qaba ee lagu soo raraya xaafada santarka magaalada ku taala cudurku wuu faafaya wuu iswada gaarsiinaya dadkoo dhan qofkii meeshii la keenay ku ekaamayo dukaamadu wax ka iibsanaya makhaayadahu imanaya marka xanuunku wuu ku faafaya dadka ma in xanuunka laga yareeyo oo meel store la geeyaba meel gooniya mise waa in santarka magaalada lagu faafiyo sidoo dadka ugu fido hortaan xaafadanu kaga hadlaynaa waxaanu leenahay nalaga joojo meel ha loo sameeyo dhaqaalaha ha la isa saaro guryaha loo kireeyo danta oo dhan inagu waynu wada ogolahay laakiin wax anaga nala saaro ma ogolin xaafadani waa dan yar 10 qof iyo hal dumar oo ay dhashay guri walba jira aabahooda bilaa camala mid ilaahun baa waxay ku nool yihiin kaaran meelana dadweynaha madax kalena waabay go'an yihiin iyagu maanta fayraska in anaga naloo keeno xaq uma lihin dhakhtarku wuxuu kii hooyada iyo dhallaanka sidee maanta aan u helay inaan anaga naloo keeno fayraska ilaahay baa keenay ilaahay naga qaado shooshkana naga qaado wada tashi baynu doonaynaa dawladdu hana maqasho dawladdu annaga ay nagu soo indhacadaanin wixii xaq noo qabta ha keenaan ma yeelayno magaaladan la midnahay haddii xaq noo keeno inaan halkaa lagu keeno waan ogolay sharci cad hana loogu keeno waxaa la idin keenay corona virus dee maxay ahayd caafimaadka dadka miyaa loo doonaa mise waa cudurkaa loo soo doontaa ilaahay baana caafimaadka haya cudurkana isaga keena koonayaasha magaalada inuu maayarku iyo barasaabku geeyaan ayaanu doonaynaa waxaan ku dhahay harjibinta ma iibin karo harjibinta uma iibin karo dee maxay ahayd cudur buu ila soo doontay gurigaaga dhexdiisa kugu keenaya dhakhtarkana hooyada dhalaan baa loo sameeyay dee magaalada koonayaasheeda ha geeyay maayarku iyo barasaabku iyo waxaan kugu wiri waxaan ay dabada ku jiidanayay dawladuba in waxaan ku dhaday looga qabto oo hoos noo eegtaan suuliyadu way buuxan tifta roobka haday soo daado way buuxsamaan suuliga iyo guriga way isku soo qabtaa dan ayaa naga saari weeday oo dan baan hayso oo na dhigtay qof kasta uu ka danaysan lahaa adduun haysto laakiin dan ayaa dhigtay sidii hoos kale lagu eeglayn marka la dhaho xanuunkii corona virus dadkii ilaahay baa keenay aadama ma keenin allahna ka dulqaaday in lagu dhaho wala idin keenay suulka waxaan leeyahay waar dadka idinka ka wada mas'uula yacniga inta xanuunsanaysa ee halkan la keenayo waxa ka badan inta bad qabta ee halkan joogta waxay u badan yihiin maata iyo dumar iyo caruur dadka bahda caafimaadka ka mas'uul